بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمada dadweyne waa nabad qabtaa wax dhibaato ma jiraan xaaladaha abaareen waa waqti cadceed aad u kululaatay iyo biyo aan weliba martay oo maanta biyihiisa ay aad u yaradeen iyo xeelasho si yaraan ay biyahooda biyo aantaas baan ayaa ka jirta madras waa tahay marka dadkaasi iyo jiilaalku saameynta ku yeeshay xaaladoodu waa sidee maxaase gurmada oo iminka soconaya oo dadkaasi lagu taageeraya waxaa ka socda biyo-aantaas waxaa waaye waa ma aragtay dadku ilaahay wax siiyey oo mataqaana wax sadaqaysanaya iyo mataqaana iyo dawladda mataqaana maamul goboleedka hirshabeelle oo kasoo jawaabtay wasaaradda tamarta iyo mataqaana biyaha hadda mataqaana biyo kusoo caawisay aad baa la iskiisayaan wax kaloo dhibaatay ma laha kuleylkana waa jira oo xilligii mataqaana dugina xoogaa waa dib dhacay marka kuleylka waxaa keenaya waa xoogaa dhibaatadaas waxaa keenaya biyo-aantaas waa mataqaana waqti iyo dib u dhacay waa magarat magaalada beledweyne ka waran nolosha dadka ku nool xaaladeedu waa sidee maxaa horumar oo ka socda ammaanku waa sidee adeegyada bulshada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii lamida maxaa horumar oo ka jira magaalada maxaase baahi oo iminka ka jira oo sheegi kartaa magaalada horumaraa ka jira waa fiican tahay waxbarashada waa heer sare boqol waaye wax dhibaato ma laha amniga aad buu fiican yahay waxaa ka jira waxaa waaye xaalad oo mataqaana oo lacag la-aan lacagta shilinka soomaaliga oon shaqaynayna ayaa maarata dadka dhibaato ku ah iyo waktigii oo kululaadi oo mataqaana biyo la-aantii biyihiina ay yaraadeen oo mataqaana biyihii aan la helaynin sida kale inta kale o dhan waa fiican tahay magarat guddoomiye magaalada beledweyne waxaan ognahay inay xudun u tahay ganacsiga isku xidhka ganacsiga gobolada dhexe iyo bari iyo koonfurta marka haddii lacagti soomaaliga aanay shaqaynaynin sidee bay dadku ku ganacsadaan wallaahi dadka way ganacsadaan laakiin ganacsi waxaad moodaa inay hoos u dhac sameeyey oo dadka nin walba uu sheeganayo inuu khasaaro yahay waxaa lagu ganacsanayo waxay tahay hadda wax laisku dhaafsado waa lacagta dollarka ah lacagta shilinka soomaaliga ma shaqeeyo maanta markii aad u baahan tahay inaad xambad xanje aad iibsato waxaad tuuraysaa mataqaanaa dhibac hal wax la yidhaha tuuraysaa marka saas baa lagu shaqaystaa ma garat dhacdo waxaa jirta saxaafaddu ay hadal hayeen magaalada beledweyne oday wiilkiisa oo 5 jir ah gowracay arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa niyow dhacdadaas waa jirtaa daraad xabaarihii duhurnimo ayaa waxaa dhacday cunug yar oo geed mataqaanaa gurigooda jifo oo banaanka gurigiisa geed oo mataqaanaa hoostiisa jifo hurdaayo ayaa mataqaanaa nin u yimid dhacda aada u foolx may ahayd marka yarkii waa gowracay qofkii la dilana wuxuu ku jira guriga markii as gowracayna qofkii markii ay soo baxday oo waxay aragtay asagoo qaylin ay waxay aragtay cunugiyo rafanayo oo mataqaanaa oo nafta hayso marka sababta uu u gowracay muxuuse u ahaana qofka gowracay wiilka hadda qofka markan aragnaa sheegi lahay ma ogtahay sababahan u gowracay iyo wixii u gowracay hadda anigu maanan arkin ninka marka inuu gowracay oo cararay ayaa ma aragtay anigu aan ognahay laamaha amnigana waa ku daba jiraan inay ma aragtay la soo helaan ilaahay rajaynaynaa dhacdadaas marka dhacda aada mataqaanaa oo uu tusaale nagu reebtay waaye oon la yaabnay marka sabab loo dilaayo cunug yar oo hadda sidii ah oo 6 jir ah ma garanayna aniga hadda waxaan garan weynin hodeen marka ma dadka yaqaana ninka wax dilay ama deriska la ah ma waraysateeno ma samayseen qiyaas ku saabsan ninku ma xag jir buu ahaa ma takfiiru ahaa maxaa lagu qiyaasi karaa wallahi ninkaas hadda anagu waxaan ku qiyaasna waa isweydiiyo haynaaba waaba la yaabin yahay qofka hadii la arkaa ma ogtahay inuu wax xagdir yahay inuu takfiir yahay waa la ogaan lahay ama diidaan loola sheegay inuu yahay laakiin qofkii cid aragtay ma jirto wuu baxsaday marka kolley in hadda la soo helo maaha nin hadda meel wajah oo la weydiiyo wax ma aha marka suurtagal ma tahay in qofkaasi lasoo qabto aad iyo aad suurtagal ay u tahay waa sababta maxaa magaaladii dhuna mataqaana lagu dhex daadiyey nabad sugid iyo ciidamo marka in xoggiisa la helo ayaan rajaynaynaa oo lagu soo qabto hadduu ilaahay yidhaah marka dadku maxay aragtida ninkan maxaa lagu yaqiinay shaksi ahaan qof noocee ayuu ahaa hadee ninka nin yaqaana uma jirto cid aragtiyo hadda ninkaasa noocaas oo dhihi karta ma jirto cunugan asagoo la diraya la arkay markii oo mataqaanaa cunugii la arkay oo rafanayana ninkuu sii cararaya la arkay oo ma arkay oo nin wax xanuunsaba maa nin dhalinyaro ahoo xoog leh oo sii ordaya la arkay ciddii marka meesha joogtay cid oo mataqaanaa qabatay ma jirto miraquu ka yiri marka lama hayo hadda sal iyo raad meel u dhig lama hayo marka hadda iyo mataqaanaa waa marka gudoomiye dhacdo noocan camal ah hore ma uga dhacday magaalada beledweyne
waa ka dhacday hadda ka hormar bilooyinkii hadda soo dhaafnay hadda ka horne sidaasoo kale isagoo mataqaanaa inta qabtay dareen raba ayaa naag kusoo oroday waa ka cararay marka ninkii cunuga tooreyda way ku dhacday cunugii magaalada muqdisho waa la keenay waa la daaway hadda wuu fiican yahay marka halkee bay marayaan howlgalladii amni xaqiijinta ahaa oo aan ogeyn inay ka socoto magaaladaasi ama la hadal hayay wallahi hadda wixii laamaha amniga lama rabe waxaaba kacayba dadweynihii ayaa kacay oo caruurta dhalay marka nin kastaba wuxuu raadin u hayaa si loo heli lahay qofkaas oo magaalada dhan dumar iyo rag inta ka dhexeysa waxaa la raadin u hayaa si loo heli lahay dadka noocaas ku shaqeynayo oo ilmaha dilaya si loo heli lahay ayaa mataqaanaa dhinac looga soo jeesta magaas marka laga soo tago caruurta la dilayo guud ahaan ammaanka magaaladaasi howlgallo inay jiraan ayaa nagu maqaalo ah oo si guud u socda oo lagu baacsanayo maleeshiyaadka al-shabaab ee dhibaatooyinka ka wada halkaasi xagee bay marayaan iyaga howlgalladaas way soconayaan howlgalladaas waa socdaan howlgalkaas waa socdaa habeen iyo maalin wuu socdaa marka waa hadda mataqaanaa amniga waa okay waaye magaalada beledweyne way fiican tahay laakiin ma laga yaaba waa laska arkaa dhacdooyin dhinaca waa suurgal waa inay dhacdooyin iska dhacaan ama bam la tuuro ama qof la iska dilo waa iska macquul laakiin boqolkiiba hadda mataqaanaa boqolkiiba waa la dadaal hadda